xafladan oo ahayd mid shahaadooyin lagu guddoonsiinayay 20 arday oo baratay cilmiga diiniga ah ayaa lagu qabtay masaajidka Nabaawi ee magaalada Garowe waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda cadaaladda Puntland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana lagu soo bandhigay khudbado kala duwan oo ardayda lagu dhiirigelinayay gudoomiyaha markaska Ashraful Shariif Maxamuud Axmed Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay ardaydu halkan ku soo gaareen iyo wixii la baray xalaqadan waa xalaqooyin ay si toos uga baxaan funuunta shariicada islaamka sida fanniga fiqhiga oo silsilada u socda fanniga xadiiska fanniga mustalahul xadiis fanniga naxwaha iyo funuun kale oo badan haddaba walaalayaal sanadkii hore waxaan qabanay dowra cilmiya aan u qabanay madaarista quraanka kariimka dowradaasu waxa ay bandhig iyo gogol xaar u ahayd macadkan Abul Qaasim oo shariicada lagu barto oo haddeer masaajidkan aynu hadda joogno ka furan muddada sanadkaana soo furnaa runtii bulsho badan ayaa ku faa'iiday haddaba maanta dowladda markii aanu qabannay iclaan ayaanu dirnay waxaanu u dirnay dadka waalidiinta ah dadka ganacsatada ah dowladda iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo islaamka ah waalidiinta iclaankan u dirnay waxa uu ahaa inay dhammaan waalidiintu ay ku soo xiraan masaajidda iyo goobaha cilmiga ilmaha lagu kontaroolo qaar ka mid ah shuyuukhda ardayda cilmiga bare ayaa ka sheekeeyay sida ay ardayda wax u bareen iyo cilmiga ay barteen u qaadanayo shariicada islaamkana maaragtay oo dhaxalkii nabi maxamed ah salawaatu rabbi wa salaamu alayhi iyadana shahaado si taas la mid ah loogu qaadanayo waliba waxay tanu kaga duwan tahay oo ay maaragtay waxa shahaadooyinka lagu qaataa waynu ognahay waxbarashada waynu ka warhaynaa jaamacaadka iyo kitaabo aan dhamaystirnayn laakiin xalakan ardayga shahaadada marxaladda koowaad ka gudbaya wuxuu qaadanayaa kitaab allaale oo kitaabada meesha ku qoran oo u dhameystiran yahay marxaladii marka ka socotay ama xalaqadii ka socotay masaajidkeenan Nabawi ama Masjidul Mawdac cilmiga iyo kutubtii ay soo qaateen oo funuuno fara badan ay lahayd oo hadii uu yahay fannigaasi xadiis oo kale wax ba laga soo qaatay mustalahul xadiis fiqhi sidoo kale waxa wax laga soo qaatay naxwa iyo sarfi iyo cilmu taskiyaha xagga aadaabta sida kitaabka tacliim mutacallim adigu kutub dhowr funuun fara badan mataliyaha wasaaradda cadaaladda Puntland Sheekh Jaamac Ali Liibaan ayaa xusay in loo baahan yahay in ardaydu ay ku dadaalaan cilmiga diiniga ah iyo kelmaadigaaba hadda waxa la leeyahay quraankii iyo iskoolkii waa la wada dhigayaayo casri kala yimi marka asaasku diinta shariicada islaamka waa quraanka kariimka qofku marka hore hadduusan quraanka baran hadda culumta kale ma baranayo marka meesha dadaalka u baahan ee waalidka iyo macallimiinta iyo kulli u baahan waa quraanka kariimka sida hadda Sheekh Maxamuud ka hadlayeen macallimiinta quraanka waxooda lama ogola ama waa dhib ama wax ma baraan iyo naanays bay leeyihiin laakiin iskuulka waxooda meel bay saarsadeen waa ku soo cayrinayaan laakiin macallinka quraanka waxoogaa bixishoonayaayo macallinkii ilmihii bay soo cayrin marka ay leeyihiin macallin xataa iskoolkii ma hanaan bixin macnaha waa iyaga waa la soo cayrinaya adigu cayrin maysid wey halkaas tanqiiska ah la geliyey diinta waxay sii sababanaysaa qofku haddii uu iskoolka uusan dhigan kitaabta iyo masaajidka u leexdo waxaan tirsanayn baa laga soo qaadaya wadaadun baa loonaya masaajidkii buu aadayo waxba akhristaa wax u tirsan oo ma garanaysaa maaha may dugsi sare ka baxay dugsi dhexe weeye jaamacad buu dhigtaa ugu dambeyntii waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay cilmiga diiniga oo muddo 2 sano ah soo waday Khaliif Geele Jubaland TV Garowe.